maanta muuqaalku wuxuu ku saabsan yahay malabka in si toos indhaha la isaga shubi karo uu faa'iido u leeyahay cudur qaar oo caafimaadka indhaha ku saabsan. marka hore aad idinkaga mahadcelinayaa sida ay u soo dirtiin fariimaha ku saabsan caafimaadka indhaha. maanta waxaan isla fiiri doonaa gabar indhaha malab isaga shubaysa iyo in uu faa'iido u leeyahay iyo in kale. waa kana muuqaalkan isla eegno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my lovely قرابو Somali TikTok ومانتا يا malabka iyo faa'iidada oo indhaha u leeyahay. malab ma indhaha lagu shubi karaa maxayta waxa sheegayso maanta waa kana malabkii aad u wada jeedaan. waxa soo qaadanaysaa geedkaas yar oo dhagaha lagu nadiifiyo. malab nadiif ah ayaan haynaa. malabkaas waxaa lagu shubaa indhaha. waa idin tusayaa bakteeriyada indhaha ka dilaa waxyaalo badan dryness ko ka bi'iya adduunyadaas oo dhan. waa kana malabkii isha ayaan dhexda ka dhigayaa. okaas sida boomaatadii ayaa isha u dhex gelinaysaa malabka. ouch waa kaasa waa furaysaa waa xiree waa furee waana xiree sidii indhaha loo dhigo. malabka ayaa dhexda ka gelinaysaa ishi. xaax waa fure waa xere xaax astaghfirullah waa kulayl badan yahay xoogaa yar ayuu gubaa dryness ko biya indhaha strength kooda dhisaa ama awoodda indhahu soo celiyaa. bakteeriyada indhaha ka dilaa ma tirtiraysid ilaa iyo indhihii waa gaduudan doonaan xoogaa yar. and then isha kale ayaa haddana ku shubayaa. waa kaasa ujeeda malaba indha lagu shubaa. akaasa waxyaalo badan indhaha ka dilaa bakteeriyada ka dilaa dryness-ko ka bi'iya conjunctivitis-ka cudurro badan oo la qali lahay ayuu malabku ka daaweeyaa indhaha. waa kaasa indhahaygii waa kaas soo dhawaada oo ogaada marka faa'iido badan ayuu indhaha u leeyahay malabku. haddaa xataa caadita waa ku dhaqi kartaa indhahaaga si dryness-ka iyo oo uga bi'iyo. marka waa kaas waa pure honey waa natural and pure honey. saas ayaa indhaha ugu dhaqaysaa. waa kaasa dadka indhaha ay ka xirxiran yihiin hadhowt wax la iska qali lahaa oo bi'iyaa. si aad u jeedin gabadha gabar malab indhaha isaga shubaysay mideeda kale waxyaaba qaar ku saxsaneed jirto oo sax ah oo mataqaana cilmiyan sax ah iyo waxyaaba yar yar uu jiro cidda ah inuu indha qaleel ku wanaagsan yahay waa sax. nooca malabka la isku haystaa nooca inta badan u wanaagsan waxa manuuka la badan malabka caadiga magaalka mid walba haga isaga shubin waa nooc kaliya la xaqiijiyo noocaas manuuka badan indha qaleel ku wanaagsan. infection kan u fiican waliba nooca infection blepharitis nabraha oo baalasha indhaha ku soo baxo qanjirada u wanaagsan. waxaa ku dhex jira maadooyin antimicrobial ko infection kala dagaalamo. sidoo kale indha qaleelka u wanaagsan infectionka nooca blepharitis kale u wanaagsan oo klinika laftirkeeda indhaha qaleelka. dadka kaliya oo gabadhan ay ka dhawaajiso ah in uu kaga maarmi karo cudurro qaar oo lagu sameeyo qaliinba kama jiro indhaha qaliin lagu sameeyaa lagu dhaho wax taas oo xiriir lama lahan. adiga ahaan hore malab indhaha muu isticmaashay maxaad ka aragtay? waxaadna qaybta commentina loo wadaagtid waxyaabaha aad ku aragtay. dabcan ani ahaan inuu faa'iido u leeyahay waliba indha qaleelka infectionka waa ku raacsanahay laakiin inta badan waxaa iska fiirsan noocuu yahay. marka intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabagabeynay. haddii aad muuqaalka faa'iidaysatay like noo saar. meel walba adduunka jirto waxaa idin rajaa caafimaad iyo indho fiican.